afhayeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan oo horena u ahaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hawd oo uu kala wareejinayay xil wareejinta gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hawd Cabdullaahi ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa iskuna jirta dhiirigelin iyo wax sheegmo ku aadan khudbadiisaasi ilaahay ma hadda igu simay mar labaad iyadoo la kala tirsanay xilka guddoonka waxbarashada gobolka Hawd oo runtii goob xuskeeda iyo xusuusteedaba runtii igu leh halkan waxaa maanta xilka tirinaya saaxiibkay Axmed Cali Murac oo laba darajo labadaba soo qabtay markii ugu horreysay guddoonka waxbarashada gobolka Hawd ahaan magacaabay gudoomiyaha degmada ee waxbarashada ee gobolka markii dambe aan xilka ka tagayna ee mas'uuliyadda kala qabtayna noqday gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hawd يا أذكر يو محمد شيخ أحمد محمد وأنا نقول مالين سلاسة أمانته حل جنب أو كره حل الساعات كوسو قيسي لابد يكون يا فريق طبقي مالين بشي لهذا أو بشو طبعا هاي عن حل كلوري مالين سلاسة محاد عاي أضرب إلا وقت جا أن محمد شيخ حل كلوري إلا ما أنت أني أحمد سكو تاريخ بنا هينون حبان السوق ده جني ترى محا ناقص صاري سقاره الدول جا محا سوق لي اسمياس محانو سوق لي قاعدين محان سوق لي waxa soo dhan waxay ku ururiyeen wax qabadkii Maxamed Sheekh ay ku ururiyeen runtii ismiyaas wuxuu bay ahaayeen intii Maxamed Sheekh dhisay shaqaalaha dawladdu wuxuu ahaa intii gaadiidkina gaariga hore waxaan ku ruuxaa wasaaradda badin loo soo bedelay gaarigii gobolku lahaa uu taagay waxa uu geliyay wax weyn oo aan la qarin karin anaguna wixii uu dhisay ee uu qabtay ayaan siyaasad u dejinay macnaheedu ma waxbaan hakranay laakiin waanu dhaqdhaqaaqnayo hawlo badan baanu dhaqaajinayo systemka macallimiinta ayaanu aad iyo aad u hagaajinayo macallin qura oo maanta magaalada Hargeysa mushahar ku qaadanaya ma jiro isagoo aan gobolka u shaqeynin dhammaantood waa siyaasadda aan ku dardaarayo gudoomiyaha xilka la wareegaya ee Maxamed Sheekh Axmed Maxamed isla markaana aan ku bogaadinayo gudoomiyihii hore qofka binaadmiga ama xilku ka taga ama waa la bedelay in Axmed Cali Murac eed loo bedelay iyo dhaliil loo bedelay xaqiiqatan diisheeyay warqadiisii talacaad ma naga inay dib dhacday wasiirkaan kaftanayo waxaan ku wasiir Axmed waa nin mudakara waa nin halkaa wax weyn ka soo qabtay kulli ku sheegay madaxweynaha magacaabowga ma kici karaysidii hadaynu meel u dhiibo inuu ku munaasib yahay oo wasaaradda aniga kursiga ku soo dhaweynay waxaan rajaynayaa oo aad iyo aad u rajaynayaa inaan maalin dhow ka soo wareejsan doono xarunta dhexe wasaaradda waxbarashada aanu sidii aan wuxuu wada qaban jirnay salaamida gobolka wuxuu wada qaban doono oo ma aha waxaan ku dhimxuha Ture waa nin isaguna kaalin adag ka soo jeesan doona waan leeyahay heeso waan ku garabaayo waliba nin Hawd iyo duruufa ayaa la soo garanaya inuu igu yimaado waliba soo wareegay runtii faa'iido weyn iyo dan weyn baa ku jirta mid waxaan ka oranayaa Maxamed Sheekh وليو عبارة إلهي أنا بشي لحد من حلك الوري أحمد بشي لحد من محمد صالح حلك الوري أحمد نبرق دوتي بشي لحد في الوري هو بلوت إيه ماسة محمد روح الله يقول كنا ودعي أنا قيم أنا سيجارة كل أروح قمري هذا وطاهر هذا إذا ما أنت مرتب محمد سيقول بدأ أخير صون حوم هذا مقيا هرتالك وحصوف الرياء خالد هارون صوف خالد هارون سيدا ما يدور بمرمر كويا لو مرمر ودي محمد سيقول روح الله dadkii wax qabtay inaan abaal marino luufta dib baan ugu yara dhacnay ragaa Khalid ugu horeeyo ee Maxamed ah
meel walba ka shaqeynaya sidii dhiirigelin loogu raadin lahaa ani Axmed Cali Macna war kala shaqeynana oo gudoomiyaasi halkan soo maray annaguna garoonka dhismaha ku soo yara tababaranay heertay oo waxaan ku soo biyaarinay hasi mar labaad ay ku soo noqotay dalka iyo dadkana u ducee roob ku ducee dhalinyarada u ducee dhanka kale Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan afhayeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa xarimarin ka bixiyay aflagaado uu ku tilmaamay in shicibka reer Balligubad lagu geysteen wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan taasoo uu ku tilmaamay inay ka soo jeedo gobolka Samsam Cabdi Aadan sidoo kale waxa uu tilmaamay inay baahi weyn oo waxbarasho ay ka jirto gudaha gobolka Hawd iyo degmooyinkiisa abaaro xooggan ka jiraan gobolka Hawd baaqna u diray guddida abaaraha heer qaran baan ku oranayo waxa jirta abaar baan oo gobolka runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa guddiga gurmadka qaranka ee madaxweynaha Soomaaliland magacaabay waxa kaloo baaq u diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay madaxweyne habeenadii markaan TV-ga daawanayo hawdo waxaan ku muxuu ahaa ay waftiyadu ka laba noqonayaan maarag xaruntan waa la garanaysa xaruntii halkii dib xareynta qaran ee SN Hormuud ka ahayd adoday ka ahayd أنا دتنا ما فكره وحنري ملا كهديد كانت كبدون دونا مدحوينها سوق كامل دونا هو هالكل كيني أكورد الناس يسأل خير بين قدوتها ما ندح ناس وحركة تيفيله أو لقط لقى هذا يا أنقول كروح بيسوق كلنين تذكر قبل هذا قبلتها هي هي تجمعتها هي كتشيدين يسأل رهود وحلاها هدير دون إنه قبل كهود هرمرو luqadaha dawladaha wax lagu dhiilgareeyo maamulka dawliga lagu hadlo gacan haadinta aanu seminar gal waa talo halka aynu aad iyo aad ugu noqono baa kale halkan waan ka dirayaayo maalinta dhaweyto qofkii carabka aad iyo aad doola dhacay waxa ahayd waxa ku Samsam Cabdi Aadan wasiirka maaliyadda Soomaaliland daan ogahay warwarka gobolka Hawd ku hayo sidee uga go'an tahay wax qabadka gobolkan runtii may mudnayn luqadii lagu hadlay waxa leeytaana taan ugu nin gobolkii baan haray ana xal ka bixiyay oo wax si fogeyno ma aha Samsamna waxaan halkan baa uga diraya gobolkii waxaan kulaad ka soo jeediyay uu soo eegay waxaan ku aafiraya gurmad degdega gacan qabasho waafiya dhaqanka iyo caadada u lahayd gobolada Soomaaliland oo dhan u fidinaysay tuka weyn oo lama laaban insha Allah ayaan rajaynaynaa Cabdiraxmaan Samriye shabakada caalamiga Harwanaag News xarunta gobolka Hawd degmada Balligubad